فيروس. معالجة هذا الفيروس تتم بانترفيرون ألفا. aqoon isweydaarsigan oo ay soo abaabuleen ururka shaybaaristayaasha Soomaaliyeed ee ka dhisan dalka Suudaan ayaa waxaa looga hadlay sida lagu hortagi karo waxyeelada cudurka beerka ku dhacay afka qalaad lagu yiraahdo hepatitis Soomaalidan oo taqaano cagaarshowga kaas oo arday fara badan oo dalka Suudaan waxbarasho u soo doontay laga helay kadibna dib loogu celiyay dalkii Soomaaliya taas oo waxbarashadu ay ku waayeen aqoon isweydaarsigan oo ay ka jeedinayeen macallimiin wax ka dhigta jaamacadaha dalka Suudaan gaar ahaan jaamacadda Afrika oo Suudaani ah kuna takhasusay baarista cudurka ayaa ugu waramay qaabka uu abuurmo iyo siyaabaha uu kala faafo sidoo kale dhaqaatiir Soomaali ah oo iyaguna dhanka shaybaarka ku takhasusay ayaa ardayda Soomaalida ah ee Khartoum jooga ugu sheekayay qaabka cudurkan oo daashaday ummadda Soomaaliyeed taas oo ay Soomaali badan qabaan hase yeeshee uusan qofka dareemi karin xanuunkiisa ayaa waxa ka warbixiyay calaamadaha laga helo waxay ka warbixiyeen calaamadaha lagu garto cudurkaasi Dr. Maxamed Cusmaan oo ah gudoomiyaha ururka shaybaaristayaasha Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ka dhisan ayaa sharaxay cudurka qaabka uu kala qaybsamo waxa uu yiri لكن عاوة كاظم وعاوة مصابة فيروس. الفيروس أقام الفيروس الأولية مرة كان classification of viruses حضر في according to nucleic acid. فيروس حاجة كله DNA وكله RNA DNA single stranded يكون هي double stranded sidoo kale Xasan Cali Cabdi oo kamid ahaa ardaydii soo abaabushay aqoon isweydaarsigani ayaa TV-ga qaranka ugu waramay ujeedooyinka ay u qabteen aqoon isweydaarsigani xaqiiqatan caawa سيد جدًا وحاقبني ندودا علمية أو طبية أم وحلو يقانو سمنارك أم وعيقلتها وحنكو عيقلنا أرضيدا عذر كان قبطة أم هيباتايتس كقبطة أم وحلو يقان عقار شوقة سودان تمد دنا ديتنا دبلو علنايو وعذر كان يهلي وحن عاو قوانا برنامج كان إن أرضيدا أن وعيقلنا أو عيقلنا كسمينو سي أيو عذر كان مدلابة مسدلا معها dadkii inuu dhibaa qadarka uu yahay dadka uu ku dhibo iyo qadarka uusan dadka ku dhibin xaqiiqatan waxa ka soo qayb gashay dhaqaatiir aad u badan microbiologistayaal iyo waxa la oran jiray dad ku takhasusay waxa loo yaqaan medical laboratory-ga ururkan waxa uu ka soo shaqeeyay gudaha Suudaan gaar khaasatan magaalada Khartoum asoo qabtay waxa la oran jiray seminar fara badan ku qabtay magaalada Khartoum asoo ka wacyi gelinayo caa'ilaadka ama reeraha Soomaaliyeed ee ku sugan Suudaan iyo maxaa la oran jiray ardayda Suudaan ku sugan xaqiiqatan cudurkan la ildaran dowladda Suudaan ayaa sanadkii la soo dhaafay ku dartay cudurrada laga baaro dadka ajaanibta markay doonayaan qofka in uu sameysto iqaamada ama sharci ku jooga dalka Suudaan cudurka ay Soomaalidu u taqaan cagaarshowga kaas oo arday badan laga helay laguna xiray xabsiyo ku yaala magaalada Khartoum halka qaar kalena wadankii dib loogu celiyay cudurkan hepatitis-ka oo arday fara badan oo Soomaaliyeed ee wadanka ka soo qaadan iyagoo qaba ayaa markii wadankan ay yimaadeen oo ay iyagoo hayso deeq waxbarasho oo si lacag la'aan ay ku heleen sababtay in dib wadanka loogu celiyo ururka shaybaariyaasha ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan ka dhisana habeenkan caawa seminaarka u sameeyay ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan oo looga hadlay cudurkani beerka ku dhaca ayaa waxay fariin u noqonaysaa ardayda Soomaaliyeed ee doonaya dalka dib inay dalkani deeq waxbarasho ay ka helaan taas oo loogu doonayo in cudurkani iska soo baaraan inta aysan imaan wadankan kuwa Suudaan joogana ay isaga daweyn lahaayeen Fiido Maxamuud Fiido TV-ga qaranka Soomaaliya Al Khartoum Suudaan